مستر رضوان عبد الله horta waxaa samaysaa waxaa tagtaa maaragtay magaciisigiisa tag maxaa la lahay waxaa tagtaa profilkiisa tag ninkaa leedahay commentedka iyo waxaas isma laha waxaa ugu sawiran abi oo maaragtay orthodox labiskooda labisan iyo maaragtay wax oo maaragtay kufaanid oo diin camal ah oo orthodox iyo maaragtay Soviet iyo Cuba iyo wax saas camal ah marka anaga waa ka go'weynahay waxa aad nagu qiyaasayso aan ka sareynaa cunugan iska daayay rugcadayaasha tigrayga ah oo maaragtay madaxa iyo garka u wada ciruubay aan maaragtay waxaan gacan ku soo siinay sida horumar lagu gaarsiin lahaa qaaradda siiba maaragtay Ethiopia sagaashameeyadii ilaa magaciisa waxyaabo aan qabano wax badan oo kamid ahna fiidiyoyaasheeda ka fiirso waxaa ku soo haray tan aan leedahay maaragtay waan qoslay waa oonaysaa ya qosol soo ma sheegaysid ana waxaan ku leeyahay waa oonaysaa sababtoo ah meel hoose taaganta abigi haddaan lugaan isugu dhufan karnaa beriyo ma qaadanayso haddii aan soo jeesto balse dadka oo support gareynayo oo raba maaragtay wax aanan jirin inay buunbuuniyaan oo maaragtay xiriirka aqoon-yahanada geeska Afrika inay maaragtay isku qasaan oo baabi'iyaan oo sharaftii sumcadda ay ka dilaan ayaan aniga maaragtay diidana على أي حال وحنا كلها إنه سومال ما هي سومال نقو جيسك أفريقيا ما هي جيسك أفريقيا نقو مركل هذا محكو شاقو ماشي أديك أكفكريس ماشي ما أنت مريس اسمه لها ماشي أكفكريس وحاواي سوكو فير سنة سجا معرتي تضباطن مليون أو باهن أو ضد أفريقيان أو معرتي مجيسة سوكو فيرنا 3 مليون ما قبانو معرتي 500 كن حتى معرتي ها ما 500 كن كنتم او انا في مقبانو واغنى لكن maxaa laga dabaaqa intee loo socdaa hogaanka intee ku socdaa maxayna u socdaan oo hogaanka dhabta ah waraa dadka geeska Afrika degay waxay ka koobmaan dadku shaytig la dhahayo dad la dhahayo Nilotic iyo Soomaaliya oo iyo dad la dhahayo Arab tan saddex afraad oo ah dadka la dhahayo maartay Bantu marka Ethiopia iyo maartay Sudan iyo Eritrea iyo maxaa lahaay Djibouti ma qabaano saddexda kale way ka koobmaan oo Nilotic dadka Suudaanta iyo saas camal ah kushaytiska dadka Cafarta iyo Soomaalida iyo Oromada iyo saas camal ah dadka Carabta ah iyo dadka intaas aan wadaagnaa anaga saad waxaan noo Bantu oo maartay wabiyashan iyo maartay Kenya gobolkan Soomaalida ay leedahay nala degaan Bantu marka laga bixiyay saddexda kale waa dictatornimo lagu yaqaana iyo doqonnimo kulligood hal hogaan ay rabaan inay daba joogsadaan United Nations marka wax la qaybsanayo waxa lagu qaybsadaa waxa la dhahaa nation lagu ma qaybsado size lagu ma qaybsado maaragtay quantity waxa lagu qaybsadaa nation Bantu intaasoo nation waa Afrikada dhexe dhan waxa waaye Afrikada dhexe kama badno kamana weyno geeska Afrika dhulkan ku shaytiska ay degaan iyo Nilotic Sudan hadii lagu daro ma kama ay badna kamana dhul weyno haddana ilaa Sudan anaga afar qof asaas u fadhiso qaramada midoobay shay wixii soo dhaca oo maaragtay horumarin ah waxa Ethiopia dhan waxay qaadatay Djibouti waxay qaataan isku mid waa sababtoo waa nation iyo nation marka anaga waxaan u soconno waxa waaye in Ethiopia ay 8 dawladood noqoto Soomaaliya 18 dawladood noqoto Djibouti 2 dawladood noqoto Eritrea 7 dawladood noqoto Sudan noqoto 14 dawladood meesha loo socdo waa meeshaas soo aroorin ma aha haddii diin iyo waxaas la dhahana waan leenahay ehli walaaliye waxaad aragtaan aan ugu xiriiro oo maartay dhul iyo deegaan iyo taariikh iyo wax walba naga dhaxayaan iyo isaga digista shirqoolada heerka caalami iyo waxyaabahaas waxaan ku maleynaa adiga daaci ma tahay iyo kaas ma tahay macnaheedu inaad Kristan tahay ana miihi
aniga hoggaanaan ah miihi Christian miihi Jewish miihi Baha'i miihi Frinism miihi Orthodox miihi Catholic miihi maxaa la lahaa Christian waaba kuu sheegay miihi waxaasoo dhan miihi hoggaanaan ahay intaasoo shacab ayaan maaragtay waxaan u diyaar garaysanahay sidii horumar ay ku gaari lahaayeen kulli si wadajir ah iyo garba siman ah oo qofna aanan lagu dulmin lahayn calaa ay xal waa ku salaamaya caruuraan cayaarsiinaya bye bye